sidoo kale cabdishakuur faarax igale barnaamij soo saare ka tirsan TV-ga caalamiga ee Royal TV oo caawa barnaamijkan runtii qayb weyn ka qaatay cabdishakuur waxyaabihii kugu yaa ku badnaa sanadkii hore ee tagay 2014 iyo sanadkan waxyaabaha rajeynaysa haddii aan ka hadlo waxyaabihii ugu yaab badnaa dhalinyarada isticmaasha social media maalmahan waxaa qabsaday wiilasha Soomaaliyeed romantic maahan romantic waaye waxyaabihii ugu yaabka badnaa waaye waxaana cadeynayaa wiilasha Soomaaliyeed inay yihiin romantic waayo wiilal Soomaaliyeed hadaan la heli lahayn gabdhahan ammaan meesha kuma joogeen سيجارة وحان سلامة يا فنانين الصومالية ده كسوق بقشي ورياشة قبلها قروح بدن يدمان كسوق بقلياشة وحان سيجارة وقوم هاد علنا يا أبوان كوين وجني أبوان جني شمي حسن حمري وان سلامة يا عبد عادل وان سلامة يا عبد الناصر وان سلامة يا ديجي عرب وان سلامة يا قبلها قروح بدن وحان ليا سنة كان سنة كيسة إلهي بشبشي برواقها نقو قارسيو إذن كنا آمنت لها هذا ما سيء وحاري صاحبك إبراهيم جيدو عوالي سوبر بيبو بحي سوبر بيبو مو بحضر يا بحي سوبر بيبو مو بحضر وكينا روا ويديان روا sidoo kale Umar Caaqil oo soo dhaweynaya oo runtii ka tirsan TV-ga Somali National TV waxaan rabaa Umar inaan ku horeeyo dabcan saaxiibkay Bibo Umar iyo Hormari Umar waxaad tagtay Muqdisho waxaad joogtaa Nairobi in badan Nairobi ka shaqeysay xilligii raafka oo runtii la israafay Nairobi ka shaqeynay maxaa ugu yaab badnaa xilligii raafka la kulantay khordar ma santahay saaxiibkay marka hore waxaan salaamayaa dhamaan dadka ka soo qayb galay xafladan quruxda badan ee loogu dabaaldegayo sanadka 2015 wiilasha iyo gabdhaha quruxda badan ay muuqda si aad ayaan u salaamayaa dhamaantiin marka hore waxaan kaloo jeclahay inaan salaamo waalidiinteeda hooyada Xamida Sheekh Cali walaalahay Idruus Cabdi Xasan walaalkay Qadar Cabdi Xasan walaalkay Maad Cabdi Xasan walaashay Nuura Cabdi Xasan iyo ilmaha aan waalidka u ahay dhamaantood intaas kadib runtii farxad weyn ayay tahay in aan ka soo qayb galo xafladan qiimaha badan oo 2015 lagu soo dhaweynayo su'aasha aad weydiisay oo ah maxaa kuugu yaab badnaa 2014 runtii waxaa jira waxyaabo badan oo la yaab lahaa waxyaabo ii gaar ah oo farxad gelinayay 2014 oo aanan hilmaami karin ayaa jira waxyaabaha aan sida gaarka u xusuusto waxaa ka mid ah markii aan Muqdisho tagay runtii waxaan soo arkay waxyaabo badan oo isbedel weyn ah oo la taaban karo 4 sano ka hor sidii ay magaalada Muqdisho marka hadda loo fiiriyo ay ka wanaagsan tahay dhanka amniga dhanka horumarka dhanka isku socodka bulshada dhinac walba marka waxaan kaloo salaamayaa saaxiibka dhinaca bidix taagan Ibrahim Geedo Cawaale Super Bibo waan salaamayaa waa saaxiibkay gaarka runtii marka intaas kadib waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan dhamaantiin anagana sanad wanaagsan aan ku leenahay waxaan jecelahay Ibrahim Geedo Cawaale ووريه runtii xagga ciyaaraha wax laga weydiin karaa bas jecel wax laga weydiiyo marka wariye xagga ciyaaraha runtii barnaamij soo saare ka TV-ga Universal marka dhalinyarada iyo gabdhaha wiilasha barnaamijka soo qayb galayna waa dhalinyaro xagga sports ka xiiseeya marka waxaan weydiinayaa sanadkii tagay 2014 waxyaabihii ciyaaraha uu ka hadlay oo xiisaha badnaa oo soo tabiyay ciyaarihii dhacay iyo laacibiinta la kala gatay hay ما سنتا قردر والسلام يا دمان دليري بدين dadka meesha jooga reeray sport school والسلام يا sanad wacan wanaagsan dhamaan dhageystayaasha daawadayaasha meel kasto ay joogaan sanad wanaagsan qordher waad salaam ya adikana bahda royal oo soo laabanaya sanadkii dhamaad waxa lagu xasuustaa sporti كوبكا دونكي برازيل ولا حسوق صبا marka waxyaabo ugu weyn koobka adduunka ayaa kamid ahayd iyo xulka Algeria oo qaarada Afrika guul u soo hooyay Soomaaliya ka qayb gashay Argentina 2018 marka waxyaabaha xasuusto si gaar ah ma jiraan 2014 laakiin raafka ugu xasuus badnaa oo rag badan oo saaxiibada la xiray marka
waxa la yaab loo soo ma Kenya diyaarad dad ku qaado Muqdisho ka dejiso tarxiil Sacuudi Carabiya oo koogeen waxyaabo ku yaab ka badnaa dhammaan waa salaamaya ummadda muslimiinta sanad wanaagsan familkayga aan salaamaya Arsenal taageer Arsenal ما ستي ركبت واي أرسل أتاجر صحوة كحار كلنا واجعل دمانتي وما ستين تاجر يا شكله دمان والسلام يا فمل كيا هاي معان أبهي كل والسلام يا دمان قرابة أصحابته بعض ورفافنته رويال تي في أصحابتي ذا يونيفرسال يا راديو بركولن دمان أصحابتي كل والسلام يا أنت ماشي لتاجن عقل يا عقل وما ستين كلين عبد الرحمن كحر كذا لو يجي السجن والسلام يا صاحبك وما ستين بريء مجلس السنة كرسم إن شاء الله أبو قادر جيلاني وري الروح دا وحنجعلها هنا شعب كسول ويسال ما دا وسنة عصب الوجر كسول واو تيفي عالمي رويال برنامج كسنة كرسم أدبر وجوده هاي ونادي سلام يا وعكر سلام يا بحر ورفافته مجال نيروبي وحاسيكار سلام يا شقالها رويال تي في يدما شعوب الصومالية يكون جودها وطن الصومالية يدبدي سبا أنا أقول بسلام إلى أدو ما سيعي وحنجعلها هاي إلى البرنامج هل سؤال ويديو طبعا وحتى وريه رقعدا سنة كي عن صلاة فنيا عن سبوتين إنه لو كوني يسدح تمك محاكو بيا بنا محاكو فرحة سؤال habeen hore la weydiiyay TV kamida TV-yada Soomaalida ayaa ay weydiiyay barnaamij nooc kale ay qabanayeen waxa ay ku yaab ka badnayd arin iguna naxariista badnayd iguna farxad badnayd waa arin qura oo wehlisay saddex sifood gaari ee hor socday ayaa waxaan arkay isagoo qallimaya taas ay igu yaab badnayd waxa igu naxdin badnayd dadkii gaariga saaraa oo islaha waxay noqon doonaa kuwa baaba'ay waxay ka soo baxeen ayagoo badqaba gaarigii waxa igu farxad badnayd dadkii gaariga saaraa oo ayaga ku dhooba isiyay biyihii gaariga ay ku wateen xataa biyaha daadan gaariga soo mooyay marka ay arintaas waxa ay ahayd arin aad fajacisay igu noqotay waana idin salaamaya mar kale ما سيهاي رنتي سنة تجي لما يكون أبر يتوقع طبعا وحوها سنة رنت بدل كفرجي بدل رنتي أي وحيا بدل رنتي أي وحيا ويكو أركان مركب حويريا وريا إغلال أو جالسنا جيس أفريقيا تي في كالسن تي في طبعا وريا رنتي إن بدل وحكا غوري وحيا بي سنة تجي دعي وحنجعلها إلى ستيج كسول وينو وحينا كتمي magaalada Kampala ee dalka Uganda martii loo tahay marka saacad ay mudan tahay aad u soo saacad waxaan leenahay soo dhawaad wadaan la ibaada Royal TV xarunta Royal TV barnaamijka sanadka cusub soo dhawaad aad baan ku salaamayaa oo mahad celinaya dhammaan asxaabta ka soo qayb gashay waxaan leeyahay mar labaad sanad wanaagsan waxaan salaamayaa aabaha haddaanu nahay reer Kenya ama East Africa aabaha saxaafadda Cabdiqaadir Jaylaani sidoo kale waxaan salaamayaa Xamari waa TV-ga aasaasaha TV-ga anigu u shaqeeyo markii uu wadanka East Africa soo galay ninkii soo bandhigay waxaan kaloo salaamayaa oo iyagana inala jooga wariyayaal aad inoogu qaaliya waa wariyaasha TV-ga qaranka Soomaaliyeed Umar Caaqil sidoo kalena diibu geedo xawaar magaca sayga Alexari isagana waa wariye ka tirsan Universal TV sidoo kale wariyayaal aad u fara badan oo aan maanta magacyadooda soo koobi karayn fanaaniinta abwaaniinta iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay caawa xalfadan sida quruxda badan loo soo agaasimay waxaan mar labaad salaamayaa qoor dheere oo ah agaasimaha TV-ga Royal TV sidoo kale xalfadan aadka u quruxda badan inoo soo agaasimay iyo wariyaasha kale iyaguna ka tirsan TV-ga Royal TV sanad wanaagsan mar labaad sanadkeena soo dhaafay waxaan ku xasuustaa wariyaashan aabihii saxaafadda iyo wariyaal aad u qiimo badan baa maanta masraxa la taaganay marka taasaaba aniga iyo wax weyn
sanadka soo socda waxaan rajaynayaa inaan sidoo kale magaaladii dee waxaa tira caasimaddeeni muqdisho mooye caasimad kale waddanka ma jirto waxaan rajaynayaa sanadka soo socda haddii lahayso inaan balma soo taabto magaalada muqdisho ee caasimadda sidoo kalena waxaan rabaa inaan mar labaad kal iyo laab u salaamo asxaabtaydii iyo magaaladii aan ka imi ee Kampala shacabkaygii reer Kampala iyo dhammaan reer Nairobi idin soo socda anigu reer Nairobi ma reer Kampala anay marka reer Nairobi Kampala idin ka horeysa mar labaad shacabkaygii reer Nairobi waxaan leeyahay I love you